xiriiryaha gargaarka bini'aadanimo ee qaramada midoobay u qaabilsan wadamada Somaliland iyo Soomaaliya Mark Bowden iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta booqday degmada Sheekh oo uu ka furay oo uu xariga ka jaray mashaariicda GBLG-ga oo laga fuliyay dawladda hoose ee degmadaasi waxaana kulan la yeeshay mas'uuliyiinta degmada Sheekh sida maayir ku-xigeenka Cabdiraxmaan Artan iyo xogayaha dawladda hoose ee Sheekh Cabdikariin Yuusuf Saleebaan waxaana uga xog warameen xaaladda degmada iyo mashaariicda ay qaramada midoobay la wadaan xiriiryaha kaalmada bini'aadanimo ee qaramada midoobay u qaabilsan wadamada Somaliland iyo Soomaaliya Mark Bowden waxa uu sheegay inuu yimid dalka inuu kormeero guud ahaanba mashaariicda kala duwan ee ku hawlan yihiin hay'adaha qaramada midoobay ee ka hawlgala Somaliland isla markaana uu kulamo la qaato madaxda sare ee dalka oo tilmaamay in degmadan Sheekhna ay caan ku tahay waxbarashada isla markaana uu soo booqday oo uu kormeerayo mashaariicda kala duwan ee ka socda ay qaramada midoobay ka fulinayaan isagoo dhanka kalena tilmaamay in ay Somaliland u qalanto ictiraaf balse ay iyagu sheegaan in dalkani uu yahay mid wax qabsaday dadkiisuna ay jecel yihiin in ay horumar sameeyaan. Vocational training is taking place. There's a wide range of things, but the important thing is that we are here to support government and authorities like the administration here to do their job. Mark Bowden intuu ku sugnaa degmadaasi Sheekh waxa uu kormeer ku tagay MCH-ka degmadaasi Sheekh iyo sidoo kale goobta biyaha laga soo saaro ee degmada Sheekh ay ka fuliyeen qaramada midoobay isagoo dhanka kalena loogu sameeyay qada sharaf magaaladaasi Sheekh oo uu ku sugnaa maanta kana soo ambabaxay waa markii ugu horeysay ee sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay uu booqdo degmada Sheekh sarkaalkan ayaa muddo 2 maalmood ku joogay socdaal uu ku mareeyay dalkan Somaliland isagoo horena ula kulmay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland iyo xubno kamid ah wasiirada Cabdikariim Siciid Saalax Hon Cable TV Berbera.